محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سي وجعلايه وحلا قياسي كرو يا وحان عبري كرنو يا وحان أنا ونقانا منا ما أهن وطولها ninka la yiraahdo Abu Sufyaan intuu soo islaamin ma aanan arag buu yiri boqoraan arkay iyo muluk ma arag buu yiri nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu say u jecel yihiin qof u jecel wali ma aanan arkin buu yiri maalintii ay banaanka u soo saareen saxaabigii la oran jiray Khubay ibn Arati ama Sayd ibn Dasam labadaba waa la yiraahdaa baa la yiri markii geedka tiirkii lagu dili lahaa ay la keenay ay waxay ku yiraahdeen ma jeclaan lahayd in nabi maxamed maanta lagu bedelay alayhi salaatu wasalaam adiguna aad nabad gashido aamin iska noqotido gurigaagii aadaadi wuxuu ku yiri saxaabigaas alayhi salaatu wasalaam reer Quraysheed iska daa in nabi maxamed la igu bedelay gurigiisii nabi maxamed oo jooga alayhi salaatu wasalaam in qodxu mudama jecli aniguna aan nabad galo saasay nabiga u jeclaayeen alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixayn ku soo saarayo waxa imaan doonuu yiri qoom umadayda kamida oo jeclaan lahaa naftooda iyo maalkooda iyo ehelkooda inay waayaan oo aniga nabi maxamed hal maray arkaan alayhi salaatu wasalaam wax kastay siisan lahayn nabi maxamed aragtidiisa alayhi salaatu wasalaam wayna dhacdo inta dad badan bal lagu arkay محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى الوحى اللي يراهده قال هذا ينفع ذا اسكده بقفك بني آدم كا أو مسلم كا أو مؤمن كا حديث كي ورينها يا عباس بن عبد المطلب أبو لهب إلهي سبحانه وتعالى كو هيدارتي أو كو أيضا إلهي كو عايي بوحى اللي مركو دنتيك بعد جيد هي وحى لو أركيبه اللي يراهده رؤية markaas la yiraahdo Abu Lahab maxaa Ilaahay kugu falay markaas uu yiri cadaab iyo halaag baan ku suganahay ilaa inaan maxaa la yiraahdaa meeshaas farta iyo suulka dhexdiisa aan ka nuugo biyo hameen kasto isniina maahan maxay tahay baa la yiri sababtaas markaas uu yiri waa i'taaqi iyo xoreyntii aan xoreeyay gabadhii Suwaybatul Aslamiyya la oran jiray oo aan nabi maxamed hameenkii la dhalay aan ku farxay alayhi salaatu wasalaam ogow hada Abu Lahab nabi maxamed nabinimo ugu ma farxin alayhi salaatu wasalaam بل وحوها قفك وقدب كبدا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي لا إلهي رسول كبدي وحو ugu farxay wiil walaalkiis loo dhalay وتيري إمامك حافظكها إذا كان هذا الكافر جاء دمه وثبتت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي دون عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا به حافظكاس وحيري هدي إلهي سبحانه وتعالى قال كي إلهي قرآن كيس وكو هيدارتي ولا يرتبط يدا أبي اللهب معناها لبدي سقع موضع بالعبري لكن وحلوش هذا داتدي سأورنا هذا السجناتي أو يسوع أرتي إن همين والبقوا اثنين عذاب كلا خفيفيه فما دنوا بالعبد الذي دول عمره بيه محاد لينا يسا أضانك عمر جيسه نبي الله محمد متكو فرحسن هذا ولي بقى سوى موحد أدنتي وحل هذا وحقال أنفع محبة النبي كجرت عليه الصلاة والسلام كذلك صدق النبي قال ويدي عليه الصلاة والسلام وحل يري تعايلك ينصر ذي وكوجر جاري شري أبو طالب محي أنفع ذي بالي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام محيو النبي عليه الصلاة والسلام كان في ضحضاح من النار بير عذاب وحو كسارين ياي بيري meeshaas rays magaadada la yiraahdo hadaysan jiri lahayn inuu aniga ijeclaayo ii gargaarana fi darkil asfari min an-nar biyir nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam naaraha todobada meesha ugu hooseysa ayuu Abu Talib ku jiri lahaa biyir nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam kullood gaalmeed may ku dhinteen Abu Jahl iyo macnaha ila Abu Lahab iyo Abu Talib ayaga dhan dadka waxay anfacada Maxamed nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ahlu kabaa'irta ilaahay markuu umadii hore ka waramayay والنبي محمد عليه الصلاة والسلام صفات كيسية الماميس وكشيكينهي مركو النبي عليه الصلاة والسلام كلوغا شيكيي oo la yiri nabiga imaan doona aqru sabaanka oo culeysida iska nikada jin doona ila diimihi diintanadan maxamediyada salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ka horeysay diinul usr bay ahay qofka nijaas hadii meel ka gaarto waa la goyn jiray meelan biyacda iyo kaniisadaha in salaado uga ma ansixi jirinin toobadkeenkoodu in isdilaan bay ahayd لكن النبي محمد باوحو أها نبي الرحمة صلوات ربي وسلام عليه مركز دينتيسنا وحا لغا دغاي
diin samxa ah oo waasac markaas marka ilaahay tilmaanta nabiga muxuu ku soo dhameeyay waxa la yiri kuwa nabigaas rumeeyay oo tacdiimiyay oo raacay nuurkii nabi maxamed lagu soo dajiyay calayhi salaatu wasalaam kuwaas ayaa ahbaa la yiri kuwa liibaanahay marka waxa la yiraahdaa qofka hadii nabiga calayhi salaatu wasalaam itibaaciisa laga helo maxabadiisana aan laga helinin waxba kuma tartaa la yiraahdo maxaa u daliila waxa u daliila nabiyullaahi maxamed sabankiisa calayhi salaatu wasalaam munaafiqiin baa nabiga safka hore oo masjidka kula tukanaysay jihaadka la galahayay haddana itibaaca nabigu calayhi salaatu wasalaam waa in shariicada daahirkeeda la raaco oo qofku wixii ilaahay amuurka ku ahaa oo salaadii soonkii sakadii kulli uu la yimaado munaafiqiintaas marka maxaa ka maqnaa maxabada qalbiga nabiga jacaylkiisa ka maqnaa calayhi salaatu wasalaam waxba kuma aysan anficin laakiin qofku markuu caasi yahay oo itibaaci nabiga laga waayo calayhi salaatu wasalaam haddana nabiga uu jecel yahay waa anfacaysa ma daliilu calaa dalik waxa u daliila nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxa la yiri nin markasta wuxuu cabi jiray qamro waqtigii sabankii nabiga calayhi salaatu wasalaam arintaas ka soo noqnoqotay dhowr jeer baa nabiga loo keenay hadba waa la jeedlay waa maalin kala la keenay waa la jeedlay saxaabada waxay yiraahdeen maalintii dambe nacalada Allah ku ridee markasta maxaa nabiga loo hor keenaaho xumaantaan iyo fisqigaan uu sameeyo muxuu ku yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam hadhiin inuu yiri miyaadnaan ogeyn inuu ilaahay iyo rasuulkiisa jecel yahay muadnaan ogeyn inuu ilaahay iyo rasuulkiisa jecel yahay meeshaas marka waxa laga ogaaday qofku haduu xataa itibaaci nabiga laga helin calayhi salaatu wasalaam haduu ilaahay iyo rasuulkiisa jecel yahay inay xataa anfacayso xumaan kasta ha sameeyo laakiin qofka aan nabi maxamed maxabadiisa iyo tacdiimkiisa laga helin itibaac kasta haduu la yimaado waxba lama iimaanayso ilaa munaafiqiintiba nabiga waa la tukanayeen oo waa la duulahayeen hadana waxba kuma anficinin marka maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam shay ilaahay loogu dhawaado shayga ugu weyn weeye waxa lagu helayaana waxay tahay maciyada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo la jirkiisa markaas waxa xaqiiqo ah qofku markuu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam maciyadiisa uu helayo inuu wuxuu raba adduunka ku sameeyo uu noqon hayo qof iimaan iyo qaatimo ku dhintay ilaa qof qaatimo xumo ku dhintay nabi maxamed macigiisa ma noqon karo calayhi salaatu wasalaam